السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وسعدي حسن جنر كان قد ونسان وأجمل جنر أصحابتي أنت هرن ورجعتوا ما سنتين أنت هذا المقال كان كل أسبوع أنا وحاق عسنا إن جنر كسبسكرايب شعران كبران كان كنت المقال وبوسو قارو برنامج علم باريس تقولوا والله ما أنت نروح على سوق بتاع سلمان كسر هو جنر فيه ودوا هاي جنر كأجمل كلي لا ودوا هاي أصحابتك سبسكرايب صارن بلانك فرصة الدنيا ولا الويا ولا شيء عاوي حواي وأنا دوا مسؤول. ما سنت سلمان برنامج علم باريس أنا ودي dadka hore badan aaweytii haddana ahmayna aad ku weydiiyay sax waxaan rabaa marka fikirkaaga inaad bulshada la wadaagto maadaama qof wax badan bulshada muuqaalkiisa uu ku bataataa oo laga yaqaano marka wuxuu ku saabsan yahay labada qof macnaha xiriirkooda nololeed biyaha iyo burburkaas wixii looga hortagi lahaa horta burburka guriga waxaa keeni karo labada qof oo aan isfahansanin sax qodobaa kuu sheegaya insha allah qodobadaas fikirka aad ka qabto aad noo sheegaysaa labada qof horta waxyaabaha fahamtaradooda sabab waxaa ka mid ah in shakhsiyadooda ay kala fog tahay matalan labada qof ay kala daawan yihiin kala aqoon sareeyaan isku arkaan inuu qofna qabiilkiisa hooseeyo qofna uu sareeyo khilaafaada ka yimaada maxaa qodobkan ka leedahay maxaase kula tartaa labada qof ee nolosha wadaagayso sidaan hore kuugu sheegay aysan isfahansaneyn wixii marka la soconayo midda kale قبيل مرة ماشي ما يجعل ماشي ميان لما قفوا إسجعل دي قبيل كان هو سيدوي قفك هذا يجعل لكن بقى مكرر ما قرأت بالحقيقة يعني مدة كلا يعني بربر كرير كاس حكيني كلا إنه قف كان كاوي يعني ما أهم إنه قبيل كيس وكاه سي ما أهم إسفهان برا كين قرأت ما قرأت لو ده قف ده إسفهمان وحواي جنة دوسو حاجة لا تقرب مكرر لكن waxaa isfaham marka hore hadaysa isfahmaan waxaa wareerkaas u dhisnaana oo maaragtay qurux badan noqona laakiin hadaysan isfahmin maaragtay reerkaas ma sii socona marka muhiimadda koowaad waa inaad ku gudaashaan in labada qof ee nolosha wadaagaya in ayaga isfahmaan aan isku darin maasha allah waa mahadsantahay qodobka labaad wuxuu yahay labada qof in micnaha ka dhaqan ahaan isfahmi waayeen dhaqanka akhlaaqdii oo kaleeto labada qof kamid ah akhlaaqdiisa inay xun tahay ama balwad leeyahay amaba muran iyo qaylo iyo qof mar walba aan macnaha deganaansho lahayn gurigana inuu asaas u yahay deganaansho qof kamid inuu deganaansho horta waa runtaadu maalmahan dambana maaragtay dumarka dhanka balwada u badan marka hore ragga ahaan jirtay laakiin hadda dumarka maaragtay dhanka balwada u badan markii populationka la fiiriyo annagoo Soomaali ah oo sabool ah oo maaragtay waxba aan haysanin haddana daan waxaan xilliga balwada ku cunayna reerka mise dhisnaana isku hormaan qofkana markuu balwada isticmaalayo dabeecadda iyo diinta maaragtay waxaa waaye waa dabeecadda ku yaraanay marka haddaad rabtid inaad reer dhaqatid waa inaad maaragtay nolosha qiyaaliga iyo doondaanka inaad kasoo tegtid nolosha saxda ah aad imaatid marka hore marka waxaan kula talinaa qof kastoo guursanayo nolosha qiyaaliga kasoo tag midda saxda imaad maasha allah waa mahadsantahay qodobka kale wuxuu yahay Salmaan labada qof macnaha qof kamid ah in cadaadis ama reerkiisa ah ama asxaabtiisa ah ama fikrado kaleeto inuu isku dayo inuu gurigiisa ku maamulo ninkoo kaleeto in macnaha fikrado kaleeto ama waalidkiisa ama walaalihiisa oo kaleeto waxay yidhaahdaan sameeya inuu reerkii faro oo asaga fikirkiisa uusan wadanin gabadhoo kaleeto in asxaabteeda ama qof walbay aragto wuxuu ku yidhaahda saan ku gaagaya inay sidii yeesho isku daydo inay ninkeeda weydiiso taas waa mid badan tahay laakiin anigu waxaan leeyahay reer dhaqanaysa waa aqli ku bartaa waxdaan aqli ku barina ma kala soconaya abeehi waalidkeyga hadalkan maqlaayo waalidkeyga taladooda ma qaadanayo adiga ninka ragga ah waalidkaaga taladooda qaado laakiin aqli ku dar oo adiga aqligaaga ku maamo adoo waalidkaaga aanan tusooynin inaad kasoo horjeedo oo aanan taladooda qaadanin haddana inuu maaragtay reer leh oo maaragtay inuu maaragtay caruur korsado oo maaragtay mustaqbal badan uu sugaa tahay waxaa waaye waalidkaagana waxba maaragtay dhinaca u quusin taladooda qaado laakiin taada ka soco gabadhii soo maaha ninka ku qabo maaragtay zawjkaaga waxaan leeyahay waa inaad ixtiraamtaa hadda maalmahan dambe dumarkii waxaa soo baxay filmaan iyo maaragtay television meelahaasi daawanayo waxay arkaan dad macnaha anaga naga dhaqan duwan Soomaali haddaan nahay Soomaali marka hore ninka ragga talada loogu dambeyn jiray qofba dhaqan uu leeyahay maanta hindida aad arkaysid waxaa waa dhaqan gooni isku dhaqan isku diin
annaga marka dhaqankii hore ma aragtay aan haysanay ahaa in ma aragtay ninka ragga reerka looga dambeeyo macnaha hadda waxay imaatay in macnaha dumarkii ay sheer la sameeyaan waxaana markuu meeshaas kusoo kordho meeshii waxaa imaanaya in macnaha laisla qabsado oo la qabsasho fara badan ay u baahan tahay waxyaabaha badan oo qaldamaya marka waxaa keenaya in maaragtay dabeecaddan cusub ee hadda maaragtay soo kordhay in macnaha in raggii ay la qabsadaan marka waxaa leeyahay muhiimadda ma ahan in dhaqan galbeed aad qaadatid muhiimadda ma ahan inaad dhaqankaaga ka tagtid muhiimadda waxaa waaye inaad reerkaaga maamulan kartid dhaqan kartid maasha allah waa mahadsan tahay qodobkan kaleeto wuxuu yahay labada qof in ay isku fahmi waayaan ama macnaha aysan isku sheeginin xiriirka qaaska oo labadooda ka dhexeeyo in gabadhu ninkeedoo kale taatay wax nadaafad daro ah ama wax bahalkay ku aragtay aysan awood u lahayn inay ku tiraahdo meeshaana cilad ka jirtaa wiilkoo kaleeto inuusan reerkiisa oran karinin nadaafad daradaana jirto qariskay qaryaan inay kalifto inuu xiriirkoodii kala fogaado horta mar haddii maaragtay reer la dhaqanaayo qariska banaanka lagu soo tago taladeena sababtoo ah gabadhan gabaashaada ee reerkeeda kasoo tagtay waxaad usoo waday inaad dhaqatid oo mustaqbal qurux badan aad uga samaysataan dumarkana maaragtay waa iska naxariis badan yihin waa iska calool jilicsan yihin marka waxaa wanaagsan maaragtay horta nadaafatu fi nafsi iimaan macnaha nadaafadda waa shay iimaanka barkiisa marka haddaadan nadaafad lahayn waxaa waaye adiga ahaan haddaadan nadaafad lahayn aniga waan ku dhibsanaa haddaan adig nadaafad lahayn adiga waa dhibsanay marka si dhibsashada meesha uga baxda waa in la helaa nadaafadda saxda sababtoo qofka hadduusan nadaafad lahayn lama socon karo lama wadi karo xiriirkiisana ma sii socon karo taasina waxay ka imaaneen qofka inuu balood leeyahay hadduusan balood lahayn qofka aan istirtira waxaa waaye afarnaaginu raadiyey noqonay hadduusan balood lahayn waa balooni waxaasuu iska ciyaaraya ka xaafaddu iska yahay laakiin hadduu balood leeyahay bacdaas waa maalintu kasoo kacana soo dhus badan u tagaa garatay gabadhina iyadoo waxaa waaye xaalkeeda isku aadaneyn tuujiginta ninka soo hordhigtay leela baby jacaylkayga ka waran markaasuu leeyahy urkaan aga hor imaado jacayl maxay tahay ma garatay marka waxaan leeyahay carafta lagu dadaalo waxaa waaye carafta dee diinta la faray in lagu dadaalo marka haddii carafta lagu dadaalo reer kuusii dhisnaana masha allah aada waa mahadsan tahay qodobka oo kaleeto wuxuu yahay labada qof dhaqaale inay isku fahmi waayaan dhaqaale inuu noqdo ninka inuu ama dhaqaale yaryaa kabadhi dulqaad yeelamayso ama ayadoo dhaqaaleyarada u dulqaadanaysa inuu dumar kala dalmo amaba uusan waxbixiska ku fiicnayn isagoo wixii inuu hayo la ogyahay haddana uusan diidayn horta waa qof gacana lagu jira qof maaragta waxba haysanin oo dee dumarka ay ku taxshanin ay jirta marka horta waxaan leeyahay qofka aan waxba haysan aad salay jeclaatay aad soo raacday islaafada alla bixiy waa imaanay haddaysan imaanin hadday soo daahdana maaragtay waa tii imaata qofku ilaahay wax la doono uma xisaabiyo marka iska dulqaadan leeyahay gabadha walaasheeda marka midda kale ah inuu damca isagoo oo micnaha dhaqaalyaradii loogu dulqaadanayo dumar kale inuu raadiyo horta waxaa lalahay ma garanaya laba qaadan isma qaado adigoo qaawan oo dee tii hore dadkeedii shidi lah inaad tu kala raadaysid qalad ay kugu tahay diintanna ma farayso haddiin afar xaasu ilaahay noo baneeyey afar xaas wuxuu ilaahay noo baneeyey xilliga aad maaragtay awoodi kartid ma garatay marka soomaalida middaasaa iskaga qasan waxaa waaye xilliga aad guursan karto waa xilliga aad awooddeeda haysid ma ahan xilliga maaragtay taas dabkeeda udunsanto kale inaad maaragtay gaajadan soo dhexgeliso marka waxaan leeyahay dhalinyarta aqliga bara aqliga ha laga socdo dee dhaqaalahan allaha kobciyaan leeyahay soomaalida iska mayaana maasha allah wadankeena nabad allaa nooga dhigo markaasuu dhaqaaleynaana maasha allah qodobkaada fikirkaagaa rabaa dumarka in lagu soo xerogeliyo naag kaleeto kulama guursanayo fikrad micnaha dumarka qasbeen in macnaha ragka yidhaahdaan mise waa wax ragku ay aaminsan yihiin reerka beenaa lagu soo xerogeliya runna waa lagu dhaqaa horta mar haddaad qofka jeceshaa runay been boo usheegay sababtoo jacaylkeena waxaa ku xeersanaa ma garatay waxaa waaye maanta qofkan saa ohinteed haddaad jeceshahay geeddeeri geedgaaban waa u fuule marka laakiin haddaad gabadha heshid waa inaad runta ku dhaqdaa haddaysan run imaanina dee maba sii jiraa jacaylkaas marka aniga waxaan leeyahay qofka aad jeceshahay run iyo been baa loo sheegaya aniga run iyo been waa iskugu daraa
magarata xaqiiqada marka laga hadlo maanta gabadhan haddaan jeclaado si aan u helo waxaan leeyahay waxaas waan ku sameynaa anigoo awoodin laakiin qalbiga haddaan taajirtahay waa caadi haddaan soo xarigeliyo in gabadhii maaragtay u sheego dhib male laakiin waa imaanay wax kasta waxaa waa allah maamulo wax kasta maaragtay allah gacantiisa ay ku jiraan haddaad maaragtay aamintid inaad waxaas helaysid waad helay oo gabadhan maaragta waa ku sameynay qofna qofku jecel waxba kama hartado haddaad maqashid baqeel nin rag hadduu yahay naagu deeqsu yahay magarata hadday naag tahayna nin ay u tahay magarata marka waxaa waaye deeqsi iyo gacan adag ma jirto ku jecel meesha maa jecelka rasmiga kan Facebook iyo TikTok iyo meelaha kama hadla midka rasmiga kala maasha allah qodobka ugu dambeeya waana kugu dheereeyay caadi waxaas qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay ragka Soomaaliyeed ee markay dumarku guursadaan dumarka intay isfahmi waayaan kala tagaan ilmana meesha ay joogaan ilmihii markii ay gabar kala guursadaan kuwa hore dayacan inta badan ay sababto taa in macnaha maamooyinka shaqooyin halis ama dhibaatooyin halis ay u sameeyaan ilmihiisa ay u koodin lahaayeen aysan isku keeni karin inay ilmihina quudiso maxaa la yidhahdaa tarbiya iyo akhlaaq fiican la siiso ninka ilmaha dhalayna reer kale iyo ilmo kalena uu dhaqan raggaa maxaa ku leedahay raggaas waxaan leeyahay waxaa waa qof maaragtay wuxuu dhalo maaragtay ma dhibsadaa ma jiro laakiin nin wuxuu dhalo ka cararaayo waxaa waaye nin maaragtay duceysan ma aha kaas allaha soo hanuuniyaan leenahay waxaa waaye waxaan leenahay ilmihii aad dhasha allah ku tuso waxaa waaye dee qofna ma aragtay wuxuu dad iyo qurux dadnimo iyo quruxdiisa ay ku jirtaa wuxuu asaga dhalay ka beermay in macnaha mustaqbal u sameeyo aniga maanta waalid ay dhalay intaan iga soo egeysiyey aniga waa dhalay ku garata marka haddii maaragtay aan la iska warhaynin dee reerkii iyo maaragtay waxaa waa dumarkiina way rafaadaan dumarkana hal mid aan ku darsanaa horta waxaan masiiri lahay filimaantan intaad daawataan nimanka aad ku baraatikeynaysaa idinkana iska daaya sababtoo ah musasalo waalan bay daawadaan ma garata oo masiir iyo naag qayaantay nin qayaanay wixii ayadoo ka dhex buuxaa guriga ugu imaanay waxaa waaye jaa aday kugu baraatikeynay ma garata marka waxaan leeyahay waxaasa iska daayan dumarka oo reerkooda ha dhaqdaan waxaa waaye Soomaali guulan leh meel kasta joogaan waa su-aasha ugu dambeysana channelkana subscribe la saaro walaashay Nairobi kusoo dhaweey waa saan filan Muqdisho ka imaatay aado Muqdisho Nairobi fadda u dhaxeeya meesha soo aragtay والله أنا قاعدة أنت عن أحكي فرق وين نمضة ولا حيس بس. نمض. تشرحوا يعني عبسك تستوقفكم معناها ماشي وروح سنة كذي. لكن ماشي. تاسم يتشتاسف. والله لا. تشوف مشاعر. ما شاء الله هذه هذا أمور سنة سلمان وكانوا هاد عندنا وقت قاعد نلقى على يجينا كنا كسر مقطع مركز تو ما سنة. Thanks. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.